السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتيدا قيمة iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada warbixin aan ku eegayno dhibaatooyinka laga dhaxlo dawooyinka la isku cadeeyo markastuu bato jaaligu waxaa badataa dhibaatooyin raadad xunxun ku reeba qofka bani'aadamka ah saatee mustaqbalka noloshiisa iyo caafimaadkiisaba iyo dhaqaalihiisaba qofkuna kama maarmo inuu aqoonta diiniga iyo tan maadiga barto dunida maanta halkay marayso waxaa jira dhibaatooyin badan oo ku cusub dhaqanka Soomaalida isla markaasina raadad xun ku reebay haddaba waxaa ka mid ah dawooyinkaasi cosmetic ee la isku cadeeyo kaasiyo dhibaatooyin fara badan ku reebay bulshada iyo hablaha Soomaaliyeed haddaba bara ka mid ah barayaasha dugsiga sare oo lagu magacaabo ayaa maanta aan waraysi la yeelana waxa uu ka warbixinaya bal dhibaatooyinka ay leeyihiin dawooyinkaasi la isku cadeeyo magacay waa Cumar Cabdullaahi oo ka tirsan odayaasha gobolka City maanta waxaan kaaga warramayaa yacni cosmetic-ga noocyo badan buu leeyahay qaar softness jirka jilciya gabdhuhu isticmaalaan laakiin qaarka qaldan ee dubka bedela ee aad ugu faafaya dhalinyarada gabdhaha Soomaalida siiba yaryarka waxyaalo badan buu leeyahay waxyaalo badan ay ogeyn baa ka jira qaar aqoon la'aan maartay u galaya oo isku marinaya iyo qaar qurux isku marinaya jira qurux iska daaya foolxumo weyn buu keenayaa dubkan sare Ilaahay wuxuu ku talagalay dub istul saaran weeyaan dubka sare Ilaahay wuxuu ku talagalay inuu cadceedda kuleelkeeda iyo maartay waxyaalaha soo gaadha nawr hadduu gaadho oo isku qabto oo maartay difaac alxaas Ilaahay difaac ugu talagalay dubka sare iska uu sameeyninba dhibaatooyinka soo gaadha jirka ayuu ka difaacaa hadda dawooyinkan ay sida qaldan u marinayaan dubka sare ayuu xoorinayaa dubkii hoose ayaa soo baxay cawlaan oo maartay midabkiisu foolxun yahay marka waxyeelada uu leeyahay kuleelkii iskama xajin karo gabdhihii cunto karis u badayeen cunto ma karin karaan oo kuleelka ma karayaan nabar hadduu gaadho isma qabanayo oo marka midabkiisuna foolxun yahay siisada waxyaalo badan buu keenayaa xitaa saliin buu keenayaa waayada cadceedda kuleelka Ilaahay ma talagelin dabaylaha maraya dubba ka sareeyahay saliin buu keenayaa qarmo buu keenayaa dhibaato badan buu keenayaa marka gabdhahan ujeedada weyn oo galaan waxaan inay cabdaadaan bay doonayaan laakiin hadduu qofka Ilaahay cadaan ugu talagelin oo midabka kala siiyay qofka cad qofka kale ma ka fiican yahay weyn la xasuusin kara haddaad cadaato qofka kale ma ka fiican yahay teeda kale hadday aad wax barta dad wax bartay dahan lahayn midab fiican buu Ilaahay soo siiyay maarin brown shiny maarin dhalaal ayuu siiyay ma ogo bal waxa soo qaadaa gabadha way ismarisay iyo gabadha midabka alla siiyay bal sawirkooda soo dhig kala garan kartaa marka wacyigelin in laga siiyo arrinkaas oo maartay kuwa aqoon darrada u galaya ay ka ogaadaan wax ay doonayaan waxa uu yahay diinina Ilaahay ma ogolo dubka sare wax loo yeeleeyo oo la dhibaateeyo Ilaahay ma ogolo maartay day waa amaanad dubka Ilaahay baa shaqo ku leh dad waxa jira caafimaadku waayo baras ku dhacday dad dhibaato ku dhacay jira dadka isku way keenin waa amrullah kuwana iyaga gacantooda isku dilaya marka dawooyinka inay ka maartay ay ogaadaan dhibtooda iska daayaan iyaan xaqan odayahan uga sheegaya gabdhaha maartay dadka ay dhageysanaya siiba gobolka si taw badnaadan iyo caalamka kilka shaadbe inay arrinka aad maartay ay uga digtoonaadaan maalin baa igu dhib badnayd waxaan ka soo socday Saciid Fooqan ka soo socday ahayd baajad baan ka dhacay hotelka hortiisa ayaan arkay maartay gabdho jooga midabkayga qaldamay garan waay waxaan mooday madaabada dharka lagu xayeysiiyo loo galiyaan moodayay markaan shil soo socday nafteeduna waxay lahayd waa qof maan ku marmayay markaan ku soo dhaw waxaan ogaaday wajigayga waa cadaan gabadhaas dubkii kalena waa madow hadda Ilaahay qofka laba midab ma siinin laba midab anigii baa argagax uga naxay wajigu waa cadaan jirka kalena waa madow hadda qofkan ma abuur Ilaahay baan sawaa sidee laba qof bay ugu noqotay laba qof dadka inta badan imka gabdhaha inta badan laba qof bay ku weeyeen laba midab bay ku leeyihiin wajigu no jirka kalena wajiguna casaan maaha cadaan maaha nooc kale weeyaan nooc maartay jirkaagu naftaadu diidayso kale ayay leeyihiin marka aqoon la'aan baa gelinaysa waa aqoon la'aan wax ay doonayaan ma garanayaan wax ay noqon ma garanayaan laakiin dubkii Ilaahay say ku xamaarayaan waa isqarxintii oo kale oo dadban weeyaan dawooyinka reer galbeedku sameeyana warshada lagu maartay lagu socodsiin dhaqaale lagu warsanayo wax dubka bedela ma oo dubka abuura ma dubka Ilaahay baa abuura in la ogaado fiican dubka Ilaahay shaqo u abuura dawooyinkiina abuurin cosmetic
marka waxa weyn arrinkaas in wacyigelin ah laga siiyo inaga codsanaya oo inuu sii baahaysan arrinkaas maanta aqoon ay ka helaan gabdhaha aqoon laanta u galay arrinkaas waxa ay doonayaanna aanan garanaynin waxa ay marsan aan garanaynin dawladdu waxay tahay aan garanaynin ay dawladdu ma ahayn ay looshin ahayn ay chemical weyn chemical wax la isku yeesano weyn lahaas wax wanaagsan ma marka dadka ilaahay oo soo lama dubka ilaahay si amaan siiyaan intaasaan baraarujinayna oo maasanta dawada la isku cadeeyo ku hayso hablaha Soomaaliyeed oo aad u adag ayaa waxa muuqato isweydiin mudan maxay dawadani dumarku Soomaalidu iskugu cadeeyaan waxaana dawooyinkaasi loogu talagalay in lagu daweeyo allergiyada iyo caabuqyada nabarada qaar kalena waxay yihiin khatar jirka qofka isticmaala waxaana dawooyinkaasi ay keenaan raad iyo saameyn fara badan haddaba waxaa loo baahan yahay in laga waantoobo oo ilaahay midabku ku siiyay la qaato sida uu noo sheegay barahaasi akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudanow intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixinteennii ku saabsan dawooyinka iyo dhibaatooyinka laga kulmo loona baahan yahay in laga waantoobo tan iyo kulanti dambe amaana Allah